بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن دعوة الكوسو دوادا ورك التلفزيون كعبد وقواها يكلا كذا وطن حرمتي سدحية مدى عبدوا وأنا الدياراني ومحمد عبد الجلسان قد بدأت دعوة دونتان الليل كينا إذا كوها إنه وها كمدا مدعوينها دلك الصومالية والله كل ما يدقي دلك إلتريا يسوع كلاته حفيز كرئيس الوزراء وصوص عليه digniin ku socota ku-sameeyaasha wasiirada cusub qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warka iyaga marka horese qadar adeega bulshada ah dunidaan ku noolnahay gudaha iyo dibaddaba waxa jooga diyaarad ka shaqeeya dalkeena daruuraha korkoodana dul sabeeyo oo idil deegaankeena timid bay u dambeysay maandeeq ilaah mahadi weeye ha u dayma la'aanina shaqaale loo diyaarsho oo adeega daacadoo dulqaadkoodu badan yahay dayacaynin ammaanado macmiishooda daryeela ku diyaar ah halkaanoo ilaah mahadi weeye dayuuradeena maandeeq ha u dayma la'aanin haddaba xafiiska diyaaradda ee maandeeq airline waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada agagaarka hodan global wixii faahfaahin dheeri ahna waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada shaashada saaran maandeeq airline maantay allah magane maantay rabay ahaatee baan sugayno ka dhowree allah magane maantay marka la kulanti wacan daawadayaal رئيس الوزراء عصوب أيها وحوا مرة دول لقى كسمياشة وزير هذا سيدا ومركل إنه وفافاهن يوريها يا مسعد داهر فارح رئيس الوزراء عصوب الصومالية إنجنير محمد حسين روبل ayaa faray xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta in rئيس الوزراء lagala tashado go'aan kasta oo ay gaarayaan ama qoraal kasta oo ay soo saarayaan qoraal uu u diray golaha wasiirada xilalka sii haya ayaa waxa ku amray in la tashi kadib nuqul kamid ah qoraalada ay soo ogeysiiyaan rئيس الوزراء iyo sii hayaha rئيس الوزراء ku-xigeenka dalka qoraalka rئيس الوزراء ayaa waxa sidoo kale lagu xusay in aan la aqbali doonin tallaabo oo ka hor imaanaysa tilmaamaha kor ku xusan amarka la faray golaha wasiirada xilgaarsiinta ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Axad ah waxa uu safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxay magaalada Muqdisho tan iyo markii golaha shacabka ay kala laabteen codka kalsoonida 25 bishii July ee sanadkani warar kala duwan ayaa waxa ay sheegayaan safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu safarkani uu yahay safar kala duwan oo uu ku tagi doono qaar kamid ah wadamada Bariga Afrika kuna hormari doono dalka Djibouti si uu u dardargeliyo ololihiisa doorashada ee 2022 bisha September ee sanadani ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa 3 sano iyo bar oo ahaa ra'iisul wasaaraha dalka waxa uu xukuumaddiisa lagu eedeynayay waxyaabo kala duwan halka dadka qaarkoodna ay aaminsan yihiin in wax badan uu qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo 24 saac ee la soo dhaafay ku sugnaa dalka Suudaanta Koonfureed ayaa waxa uu booqasho degdeg ah ku tagay dalka Eritrea garoonka diyaaradaha magaalada Casmara ee dalkaasi Eritrea ayaa waxa madaxweyne Farmaajo ku soo dhaweeyay dhigiisa dalka Eritrea Asiyaas Afwerki iyada oo la geeyay xarunta madaxtooyada ee dalkaasi mudane Farmaajo ayaa booqashadiisani oo qaadan doonta muddo 48 cisho waxa uu kula kulmi doonaa amaba uu kula qaadan doonaa madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afwerki iyaga oo ka wada hadli doona xiriirka labada dal tallaabooyinka ku saabsan horumarka dhinaca bulshada iyo sidoo kale isdhexgalka iyo isbedelida dhinac walba dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdigani uu hogaaminayo ayaa waxa la filayaa in booqashadan ay ku booqan doonaan goobo ay dawladda Eritrea ka fulinayso mashaariic kala duwan iyo sidoo kale meelo kale Farmaajo ayaa shalay waxa uu tagay caasimadda dalka Koonfurta Suudaan ee Juba isaga oo halkaasi kaga qayb galay munaasabadda dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee u dhaxeeya dawladda Suudaan iyo sidoo kale kooxaha hubeysan ee galbeedka iyo koonfurta booqashadan oo madaxweyne Farmaajo ku tagay dalka Eritrea ayaa waxa ay noqonaysaa markii saddexaad waxaana horaantii bishii January ee la soo dhaafay uu booqasho ku tagay dalkaasi
kagana qayb galay miro dhalinta tallaabooyinka ay isku furfurayaan dhanka diblomaasiyadda iyo isdhex socodka bulshada gobolka. guud ahaan daawadayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabaynaynaa warkii telefishinka Caabud anigoo ah Maxamed Cabdi Jalasan ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulanka iyaga xiga midkan waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. nabadu waa furaha nolosha. haddii aadan nabad haysan ma helaysid fursad ay wax ku baratid, ma shaqaysan kadhid, ganacsina ma furan kadhid. warligo nabada ummado nabada wanu manahi jaahilnimo iyo alla ka cabsi la'aan baa dulmi dhasha. dulmi waa wuxuu dhalaa qabyaalad. qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan, qurux la'aan, qaynuun la'aan, fursho la'aan, qadarin la'aan, qabad la'aan, moogta qas iyo qalalaasta iyo qawrac iyo qax iyo hoog iyo boo dhan bay dhashaa. warligo nabada ummado nabada wanu manahi wanu manahi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayay ducooyinkiisi waxaa ka mid ahayd inuu yidhi allahuma innaa nas'aluka al-amna wal-iimaan, ilaa waxaan ku weydiisanaynaa iimaan iyo ammaan. marka ammaanku waa shayga keligiisa oo ka qayb qaadan kara qofku inuu waxa weeyaan wax fiican oo la taaban karana uu la yimaado. waa nolol oo nabad la'aan waxba maana baranin heerka ammaanta joogana ma aanan gaarin haddii aanan nabad haysan. shirki la qabtaba adoonshina warshoosh loo nabad dashaasha iyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloombiyo muro waxsiishida iyo la shahoor hadal shakar samaho adooshayba sheegta nuxur daran la sharsharo meel shidee noqoto shacabigu mar rabe ha laga shiro. danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihi sharwado shib naga dhahaa. intay garmaqaate iyo garaad xume noo tasheen maxaa dhacay guuldariya gafiya ceebaan harayn. gadoodkii muxuuna baday, maxaa gacal kala anbaday, maxaa gaariyo ninkeed isgoobaan war iska hayn, maxaa odag guuyo dhaqay u go'ay gaajiya haraad, maxaa reer gaan ahaa gantoomee gaban ka haray, maxaa guur seegtay inan, maxaa godob layska galay, maxaa gashi layska dhacay, maxaa guryo nabad ahaa la gubay ee galangashaa, maxaa gacal iyo dadbaha colaad loo kala guntee isgowracay sabab la'aan. dagaalkii lama gartaan muxuu go'ashayna baday. nabadee macaanee neecaw udgoonee iyo barwaaqada nimca lagu qaboobay itanaasir maano laga jaqo nafaqaday naxariista eebaay niyadana u rooney naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn ugu naawilayse.